haddii laga sheekeeyo jilaaga ugu cabqariyada badan taariikhda Hollywoodka waxaa lagama maarmaan ah in la soo hadal qaado magaca Meryl Streep taasoo noqotay jilaaga ugu badan ee loo soo sharaxo abaalmarinta Oscar-ka waxayna heshay awoodda cajiibka ah ay u leedahay inay matasho shakhsiyaad kala duwan oo mid kasta ay kaalintiisa ciyaarayso iyadoo sideeda uga soo dhalashay Meryl Streep oo hadda 70 sano jirsatay waxaa loo aqoonsan yahay tusaale ay ku daydaan jilaaga cusub ee hadda soo galaya saaxada fanka iyo jilaannimada waxay dhalatay 22 Juun 1949 gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka magaceeda dhabta ah waa Mary Louise Streep laakiin isla magaca Meryl waxa uu bixiyay aabaheed oo xilliga ka shaqeynayay dhanka farmashiyaha Meryl waxa lagu tiriyaa inay tahay aktarada ugu sharaxaada badan taariikhda Oscar-ka waxay musharaxiinta abaalmarintan ka mid noqotay 22 jeer saddex kamid ah way ku guuleysatay tan koowaad sanadkii 1979 ay ku guuleysatay kaalinta jilaaga labaad halka abaalmarintii labaad ay ku guuleysatay sanadkii 1982 kaalinta ay ku lahayd filimkii doorashadii Sofia oo ay ku guuleysatay jilaaga ugu wanaagsan ee gabdhaha halka abaalmarinta saddexaad ee Oscar-ka ay ku heshay kaalinta filimkii haweeneydii bisha ahayd ee sanadkii 2012 soo baxay sidaas oo kale waxaa loo soo sharaxay 30 abaalmarin oo nooca Golden Globe Award-ka ah sideed kamid ah way ku guuleysatay sidaas darteed Oscar-ka iyo Golden Globe-ka waa labada abaalmarin ee ay noqotay qofka ugu badan ee loo soo sharaxo inay ku guuleysan karaan Meryl waxay hadda ka hor afkeeda ka sheegtay inay leedahay xasuus awood badan oo kaalin kasta oo filimka ay ka jiliso ay si fudud ku xifdiso iyadoo waliba akhrisa hal mar oo qura qarashaadkii ka soo galay filimkii haweeneydii birta ahayd ee sanadkii 2012 waxay ku bixisay $1 milyan oo ay ugu tabarucday dadka samafalka ka shaqeeya maadaama lagu tuhmayay inay filimka jilidiisa u gashay inay ka hesho lacag fara badan halka dharkii ay ku jishay filimkii The Devil Wears Prada ay ugu tabarucday hay'ado samafal ah oo xaraash furan ku iibiyay sidaas darteedna lacag fara badan ka helay dhaqan Cumar